dagaal culus ayaa ka dhex qarxay maamulada waqooyi bari Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa deegaanka uu dagaalka ka qarxay oo lagu magacaabo Shidan halka Waqadariya goobta la yiraahdo oo iyadana xuduudda gobolka ama labadaasi maamul ah oo xaalad adag ay ka taagan tahay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa Villa Soomaaliyana kulan gaar ah ayaa ka dhici doona kaas oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si ehliyan ah ay ugu tagayaan madaxweynayaal hore xildhibaano iyo musharaxiin madaxweynayaal oo aan halkan idinkugu soo gudbin doona saaxiibayaal haddii ay tahay markaa kugu horeysay ee aadna soo booqato nagu soo biir saaxiibadaada la sii wadaag muuqaalkan meel dheer nala gaarsiiya mar kale soo dhawaada aynu ku bilownay sida aanu ka warqabno sidoo kalena badankiin aad ogtihiin maamulada waqooyi bari Soomaaliya iyo Somaliland xiisad adag ayaa ka taagneyd tan iyo markii ay kala baxeen dhinacyadan waxaa la wariyay in xaaladdu ay aad u adag tahay dagaalna uu qarxay subaxnimadii hore ee saaka hub culus oo leh noocyo kala duwan la isku adeegsanayo bariga gobolka Sanaag ayuu dagaalkan si toos ah uga socdaa gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Waqadariya iyada oo dagaalka la isku adeegsanayo hub leh noocyo kala duwan oo waliba qoriga darandooriga u dhaca uu ku jiro inkastoo aan ilaa iyo hadda qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay aanan la ogeyn haddana warar iyo xogo kala duwan oo aynu helayno ayaa sheegaya in dagaalka uu xoogan yahay qasarihii ugu badnaana uu geystay iyadoo wararku ay sheegayaan in iska hor imaadku uu sababay in xaaladdu ay ka sii darto maalmihii la soo dhaafay ayay dadku deegaanka sheegeen in xaalad adag ay ka taagneyd deegaankan lagu magacaabo Waqadariya ilaa iyo Shidan oo ay wararku sheegayaan inay u dhaxaysay laba beel oo markaasi halkaasi degta laakiin markii dambe waxaa la tilmaamay in dagaalku uu ku bilowday in labada dhinacba oo is horfadhiyay midkood uu xabad bilaabay taas oo keentay in dagaalka uu halkaasi ka qarxo inta uusan qarxin ka hor waxaa la tilmaamay in fariimo hanjabaad ah ay warbaahinta bulshada isaga jeediyeen dhinacyadan taas oo keentay in dagaalka subaxnimadii hore ee saaka xabado goosgoos ah uu ku bilowdo laakiin marka la gaaray labada saac ilaa iyo 3 saac maalinimo si toos ah gacanta la iskula tagay taas oo keentay in dagaalka xoogiisa uu ka bilowdo deegaankan lagu magacaabo Waqadariya wararka ayaa sheegaya in gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidamadii ugu badnaa oo waliba wata hub culus lagu arkayo dhinacyadaasi iyadoona waliba la tilmaamayo in dagaalka hadda socda laga cabsi qabo inuu halkaasi ka sii xoogeysto oo marba marka ka sii dambaysa cabsida aadka u xoogan ee ah dagaalka in halkaas ay ku soo biiraan ciidamada labada dhinac ee waliba waqooyi bari ee Soomaaliya iyo sidoo kale Somalilandba ay tahay inay ka digtoonaadaan dadka shacabka ah qaybtood ayaa la wariyay inay hub ka qaateen oo subaxnimadii hore ee saaka dagaalka ay bilaabeen taas oo keentay in ciidamadu labada dhinac ee waliba is horfadhiyay ay rasaasto isku bilaabaan inkastoo ana ilaa hadda si rasmi ah loo ogeyn sida dagaalka uu u socdo iyo sidoo kale habka uu ku bilowdaba haddana waxaa wararku ay sheegayaan in qasaraha ka dhashay durba aanan la soo koobi karin ciidamada Somaliland ayaa la wariyay in daqiiqada kadib markii uu dagaalka bilowday inay goobta gaareen halkaas oo ay markaasi la safteen mid kamid ah dhinacyadii dagaalamayay iyaga oo waliba sheegay in ciidamo huban ah oo ka yimid dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya ay soo weerareen deegaankaas lagu magacaabo Waqadariya ee dhinaca Somaliland waana deegaan xuduudeed labada dhinacba in muddo ah ayay isku qabsadeen waxaana la wariyay in Somaliland gacanta ay ku haysay in muddo ah laakiin dadka deegaanka ay bilaabeen kacdoon iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ku doonayaan inay isaga dulqaadaan ciidamadaasi Somaliland dhinaca kale waqooyi bari Soomaaliya ayaa isagana la tilmaamay in markii xogahaasi ay soo gaareen oo idil uu bilaabay in ciidamo military ah uu u diro xuduudda dhinaca Somaliland iyo waqooyi bari gobolka Sanaag waa goobaha xilligan ama qayb ka mid ah goobaha muranka uu ku jiro ayaa ku jira waxaana la warinayaa in xaaladdu hadda ay sii adkaatay rasaasta halkaasi ka socotana ay u muuqato in dadka deegaanka qaybtood ay bilaabeen durba inay ka sii baxaan halka uu dagaalka ka socdo si ay kaga fogaadaan dhibaato soo gaarta dagaalka hadda waxa uu muuqdaa in labada dhinacba uu kala gaaray oo waliba warar kala duwan oo soo baxaya ay sheegayaan in xilli kasta laga yaabo in ay isku dhacaan ciidamada waqooyi bari ee Soomaaliya iyo sidoo kale dhinaca Somaliland oo ciidamadii ugu badnaa iyagana la tilmaamay subaxnimadii hore ee saaka markii uu dagaalka bilowday laga soo diray
deegaankan waqadariya lagu magacaabo waxa uu xigaa bariga gobolka Sanaag waxaana la warinayaa in uu kamid yahay deegaanada muranka ku jira ee in badan oo kamid ah ay markaasi gacan ku intiisa ay isu dhiibeen dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland ma jirto xog rasmi ah oo laga heli karo saraakiisha dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya ee howlgalkan hogaaminaysa waxa ay sheegeen in weerar lagu soo qaaday deegaankaas lagu magacaabo waqadariya oo bariga gobolka Sanaag xiga sidoo kalena ay iska difaaceen oo xilligan ay ku jiraan difaacid iyo sidoo kale inay ka hortagaan wax kasta oo lagu soo xadgudbi karo midnimada ama madax banaanida dhuleed ee ka jirta deegaanada waqooyi bari ee Soomaaliya isla sidaas oo kale Somaliland dhinaceedu waxa ay sheegaysaa in subaxnimadii hore ee saaka ciidan huban ah oo dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya ka socda weerar xoogan ay ku soo qaadeen deegaankaas lagu magacaabo waqadariya oo kamid ah deegaanada xuduud xiga iyada oo waliba weerarkaasi uu sababay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha dhinaca Somaliland waxay xaqiijiyeen inay iska difaaci doonaan weerarkan iyo cid kasta oo ku soo xadgudubta madax banaanida dhuleed iyo sidoo kale midda dadeed ee Somaliland oo hadda muran xoogan uu ka taagan yahay ama uu ka jiro labadan maamul ee waqooyi bari ee Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland waxa ka taagan khilaaf soo jireen ah oo soo bilowday 2023 kaas oo kadib markii dadka reer Laascaanood ay qoryaha u qaateen inay iska dulqaadaan ciidamadii Somaliland ee militariga iyo booliiska isugu jiray ee in muddo ahba ku sugnaa gudaha magaaladaasi Laascaanood ee gobolka Sool taasi waxa ay keentay isla sanadkii 2024 bilowgiisii in dagaal qaraar oo halkaasi ka dhaco looga saaro militariga Somaliland xiradii ugu weyneed ee lagu magacaabay goojo cadana loogu galo ciidankii Somaliland ee halkaasi ku sugnaa qasaarihii ugu baaxadda lahaa ayaa ka dhashay sidoo kalena lagu qabtay rag saraakiil ah oo ilaa iyo hadda xabsiyo ugu jira maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya iyo sidoo kale dhinaca Somaliland ay maxaabiis saraakiil ay ku jiraan gacanta ku hayso xitaa mas'uuliyiin horay u soo maamulay dhinaca maamulka Puntland walow markii dambe heshiis dhaxmaray Somaliland iyo sidoo kale Puntland ay ku soo kala deysteen maxaabiista qaybtooda dagaalkan ayaa u muuqda wali in uusan markaasi daba jarmin oo wali uu sii socdo ilaa iyo haddana ma jirto xog rasmi ah oo laga heli karo iyo faahfaahino isa soo taraya oo halkaasi ka imaanaya keliyana waxa la og yahay ayaa ah in dagaal halkaasi uu ka qarxay subaxnimadii hore ee saaka iyadoo bil barakaysan oo Ramadaan lagu jiro labada dhinac ee isweerarayna midba midka kale waxa uu eedeynaya kan kale iyadoo oo weerarka cidda sida saxda ah u qaaday aanan la ogeyn laakiin waxa uu dagaalka ka bilowday sida ay wararku sheegayaan laba beel oo ku sugan deegaankaas waqadariya oo arrimo maamul uu markaasi ka dhaxay ama isku haystay taas oo keentay inuu dagaalka sii qarxo sidoo kalena hadda la sheegayo in qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhasho xabadu weli waa ay socotaa bariga gobolka Sanaagna waa lagu sii siqayaa deegaano kale oo hor leh ayaana dagaalka looga cabsi qabaa in uu gaaro iyadoo waliba gurmadi xoogan ay ka kala imaanayaan Laascaanood iyo Hargeysa si dagaalka uu u sii xoogeysto midkoodna halkaas looga itaal roonaado waa sida inta badan ay soo warinayaan wariyeyaasha iyo sidoo kale sawir qaadayaasha halkaas ku sugan oo daqiiqad ka dambaysa waxa ka soo kordha dagaalka si toos ah bulshada Soomaaliyeed ula wadaagaya ilaa dhabaad haddii aan la soo gaartay nagu soo biir sidoo kalena qaybta hoose ee faalada aragtida nagu la wadaaga wixii ka soo kordha dagaalkanna idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee xogihiisa hela